السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فاتوش فاميلي channel أصحابتي داونيسا هالكا داونيسين وفاتوش فاميلي قفك إلنا هالضيانا يا كلا هادو فاتوش سو دوااد أصحابتي نقول عصب أصحابتي هورنو لتشوكتي كل جيم بسو دوااد هادبا maantay waxaan rabaa inaan ka hadlo taxi ritaanka saa kor kusoo aragteen because su'aalaha markay maasha Allah aad igu bataan waxaan jeclahay in asxaabtayda kasoo jaahil bixiyo asxaab badan baa taxi ritaanka ku wareertay maxaa la dhihi jiray dhahaan taxi ritaanka wuu iga soo daahay faatuushay lacagtii aaway unemploymentiga taxiga la iskugu soo celinayay miyaa la ii soo celinaya anigoo waxba aan samaynin sidoo kale dad baa waxay isu weydiiyeen haddii ka waran intaan unemployment ku xaraystay lacag la igu lahaaday lacagtii miyaan bixiyaa mise waxaan sugaa inta lacagtayda cusub la ii soo diraayo inta lacagtii la ii soo diraa insha Allah marka waxaasoo dhan baan maanta kaa fargaraynayaa sidoo kale waxaa samaysiin haddii barnaamijka aad ka heshay sheer saar asxaabtaada la sheer gare suulka dhacdhacdhaca kasii kan hoose naga ilaali sidoo kale maxaa la dhihi jira commentiga wixii su-aala qabtid kusoo qoro يا سولك ما دام سولك هدا ودي داشي waxa ay sameynayaan youtube-ka asxaab badan bay u sii recommend gareen waxa anigu waa jeclaaday dadka kale u gudbiyo waay marka ma sha Allah sidaas sameeyo share gareeyo barnaamijka dad cusub ha nagu soo biireeno marka daawanaysa meesha guduudka subscribe waxba kaama dhibaysa lacagna ma ahane gabadhan bal ugu dhufo bal insha Allah haddaba taxi retime-kii waad ogeydeen 2020 taxi retime baa socda sidoo kale taxi retime-ka dadka aan la soconin waa la dheereeyay waqtigiisii oo waxaa laga dhigay ilaa May bisha shanaad 17keeda 17deeda bisha shanaad 17deeda ilaa intaas baad buuxsanaysaa oo hadda bisha afraad oo dhalanaysa 15keeda buu ahaan jiray laakiin barnaamijka dartiisa waxyaabahan dhan oo iswaxay waxa ay dadka kama gaarayaan inay xareeyaan taxi retime waqtigii loo rabay because dadka dib baa ku noqonaya iyo kaba IRST sidoo kale marka waa la dheereeyay ka faa'iideysta ilaa waxa haysataa bisha shanaad 17deeda waay marka su'aalaha badan oo ka soo noqdeen waxa waaye why uu taxi retime-kaygi late u yahay taxi retime-ka late u yahay taxi retime-kaaga cilado badan buu late u ahaan karaa cilado badan buu u ahaan karaa haddii aad ciladaas qabtid yani iska fiiri lacala taxi retime-ka markaa xareyso horta hore IRS-ta oo aad ku xareysid online is because dad baa paper dira ma fahanta dad baa intii application buuxiyaan diraan yani oo formka buuxiyaan ay diraan haddii formkaas aad buuxisid oo dirtid wuu daahayaa because IRS waxaa ka maqnaa dad badan oo barnaamijka dartiisa ofisyo badan loo xiray marka ma ay process garaynin hadda way ku jiraan way process garoonayaan tii maxaa la dhihi warqadihii lagu diray iska buuxsameen dad badan baa warqada ku soo dirsamay laakiin waxaan la hadlayaa dadka online-ka haddii aad live u buuxsato website-ka aan online ka buuxsatay oo loo diray automatic loo diray IRS-ta wax badan kuma qaadato waxay ku qaadataa inay taxi retime-kaaga process gareeyaan oo ay hawshu ka qabtaan 3 beri bis ay ku qaadataa lacagta maantaas ay kuu soo diraan maanta markay process gareeyaan accept ay dhahaan oo ay ogolaadaan taxi retime-kaagana 21 day 21 beri waxaan u maleynayaa ay ku qaadanaysaa waa adiga 3 week waay ay ku qaadataa inay refund-kaaga kuu soo diraan lacagtaada marka waad garan kartaa sida ay u fududahay aad bay u fudud qofka haddii waxba laakiin waxay dhaheen haddii cunug cusub uu ku jiro kaba soo qaad dadka badanka leedka ay ka noqotay haddii ilmo cusub ah hadda soo process gareysatay oo hadda aad ku soo dartay wuxuu haddii child taxi credit-ka aad yani earn income-ka oo ilmaha lacagta ilmaha loogu soo celinayo dadka ilmaha waxaa laga yaabaa xoogaa inay longer qaadato daad long ma qaadanayso laakiin iyadana xoogaa yacni delay bay ku samaysaa because cunug cusub baa ku darsatay hore aad cunugaas ugu dirsan karin soo waa inay process garayaan soo isla markii haddii wax lagaa rabo IRS way kula soo xiriiri warqad bay kuu soo diraysaa waxaa jiri kartoo kale formkaaga haddii wax laga tegay oo incomplete uu yahay iyadana sidoo kale delay bay kugu samayn kartaa oo way ku daahin kartaa waxaa kaloo ku daahin kara kaba soo qaad haddii maxaa la dhihi jiray aad bangigaagii informationkiisa ka tagtay oo meel wax lagugu soo diro kaba soo qaad markaa bangiga xareynaysa dadka bini aadan waayo qofka numbers buu gelinayaa waxaa laga yaabaa inuu one number ka qalday inuu
routing numberka wax ka tegay marka ayadiina waqti bay ku qaadanaysaa sidoo kale waxay dhaheen haddii aad gelisid lacag kaba soo qaad waxaad shaqaysay 20 kun waxaad 21 baan shaqeeyay marka meeshiina ay uga jeedaan warqadahaaga inaad 20 shaqaysay marka qaladyada qaarkooda ayaa kaa saxaan hadday very simple math tahay oo wax yar aad ku darta wax yar ayaa kaa saxaan laakiin waxyaalaha qaarkooda waxay qasab ku tahay inay warqad intay kuu soo diraan adiga saxdid sidoo kale IRS waxay dadku ku boorisay in get my paymentiga waxaa la yiraahdaa my refund alla my refund waxaad tegaysaa IRS ta marka IRS tagtid my refund ku dhufanaysaa dad baan u diray haddana waa in kugu soo xirayaa maxaa la dhihi jiray linkiga hoose commentiga aan kugu soo biin karayna haddii ilaahay idmo marka meeshaas baa ka check garanaysaa ka fiirinaysaa haddii wax dhib ay ku haystaan waad arkaysaa haddii processing lagu dhaho meaning process baa ku socda waxbaa kugu socda waaye haddii la dhaho process haddii lagu dhaho meaning waa la process gareeya waa jat one day baa tirsanaysaa lacagtaada inaad ku heshid oo laguu soo refund gareeyo sanadkan dadka dhan baa late iska ah because taxigii baad wax isku imaaday ayadoo bandamig ah IRS horey u sheegtaba bandamigii ayadoo dad badan ka maqan yihiin ofisyo badan xira inkastoo hadda dib ay u soo celiyeen shaqaalahoodii laakiin waxay dhaheen shaqaalaha maqan ama maqnaaday horey waxay dhibaato u geysatay dadkii warqadaha ku diray soo marka badanaa uma geysan dhib bay ku dhaheen dadkii live usoo buuxsaday yacni online ka buuxsaday oo aan paper dirin oo live usoo buuxsaday dadkii warqadaha buuxsaday bay waxay waxaysay backlog bay samaysay waxay samaysay wax badan dadkii wax badan isku aruureen isku aruureen marka ay process garanayaan waxayna soo paper haddaad dirtay way daahaysaa laakiin haddii caadi lagugu diray oo aan application la dirinin waxa waaye tax returnkaaga is on the way meeshaas aan kugu soo dhejinaya waxaan kugu soo dhejinayaa application يعني marka ku dhufato linki wuxuu ku geenayaa meesha aad gelinayso social security marka informationka aad gelinayso iska sax gali fiiri way ku sheegaysaa sidoo kale waxa la soo weydiiyay su'aal ah faatuushay dadkii tax return-ka buuxsaday oo unemployment-ka qaatay oo lacagtii yani aan helinin 10,000 iyo 200 no taxiga ee unemployment-ga horena u buuxin maxaa sameynaa IRS waxay tiri dib ha u soo buuxinina suga ayada automatic refund bay soo sameynaysaa soo kaba soo qaad haddii lacag kuu soo noqon lahayd $1,000 ah you don't need ina mar dambe aad saxdid oo aad ku noqotid ma u baahnid su'aalahaas ayagana aad baa iisu weydiiya uma baahnid ayaka automatic kugu soo sameynayaan lacagtaadi saasay kugu soo dhacaysaa kaba soo qaad dad baa waxay soo weydiiyeen IRS anay marka hore lacag ugu yeelatay because unemployment-ga lacag iga yeelata marka maxaan sameynaya maadaama anigiina aan ogahay in lacag ii soo noqonaysa anigiina lacag igu leeyahay maxaan sameeyaa soo sidaan baa sameynaysaa lacagta hadda ma diraysid because lacagta badanaa waxay duu tahay markay warqadda kuu soo diraan warqad baa lagaa soo daba diraa adiga inta orada hore payment kama sameynaysid marka waa laga sameeyaa mararka qaarkood laakiin hadda waa pandemic soo waxyaalo excuse baa leedahay because taxiga dhan baa waxaa loo dib dhigay ilaa May 17 soo marka maxaa sameynay waa sugi IRS ayada warqad kuu soo diray soo unemployment baa qaadatay lacag baa lagugu soo yeeshay adigina lacag baa kaa maqan soo for example waxaa laga yaabaa lacagtan lagugu leeyahay half in laga soo tago because 2,000 haddii lagugu lahaa 1,000 kuu soo noqon lahayd meaning 1,000 bisaa lagugu leeyahay soo 1,000 adayga kuu soo noqonaysa automatic libo because lacagtii 10,000 iyo 200 taxigii lagu saaray baa lagu soo celinaa marka waxaa laga yaabaa IRS intay dib u fiiriso 2,000 ay kugu lahayd 1,000 maadaama uu kuu soo noqonayo intay lacagtii soo kala jirtay 1,000 kale kuu soo dirtaa ku tiraada 1,000 kaas baa laga rabaa marka waxbaha sameynina suga IRS ayada warqad kuu soo diraysa haddii tax return hadda aad buuxsanaysina I think systemki waa update sida aan maqlay online aan ka aqriyay hadda update waa hadda tax return ku xareysan kartid hadda waa xareysan kartiin oo dadkii unemployment-ka qaatay waa laga jarayaa 10,000 iyo 200 oo taxiga aan la saaraynin waa lagu xisaabinaya marka systemkii waa diyaar hadda buuxsada haddaa sugayseen waa buuxsan kartid just qofka oo ka buuxsanaysid aad wacaysa waxaa leedahay systemkii unemployment maadaama qaad dadka unemployment aan qaadanin it's okay wuu fiican yahay ku xigo iska xareysanay laakiin unemployment haddaa qaadatay janiskaas waxaa leedahay 10,000 iyo 200 aan taxi lagu saaraynin ka faa'iideysta qofka waxa tiraa magara systemkaas diyaar mi aha markuu ku yiraa horabaad uga tuurnaysa marka xaggaas baa laga kala jaraya wakaas hadde waa faatuush family oo dhahaysa subscribe channelka
waxaan ku iri maasha allah communitygan ayaan u faa'iideeyaa waana sii wadi doona shaqadeeda inta ay nafta igu jirta haddii ilaahay idmo idinkuna isaacideeyo oo waxaad samaysiin barnaamijka dadka la sheer gareeya subscribe saara si aan u wada korno oo dadkana ugu faa'iidaysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda